agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka maamulka Puntland oo dib ugu soo laabtay deegaanadaasi ayaa ka warbixiyay kulamo uu hay'adaha wada shaqeynta kala dhaxaysa oo kula soo qaatay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. wariyayna inooga soo warama magaalada Garowe Cabdixamiid Salaad Bare ayaa warbixinta warkan halkaasi inooga soo diray. Cabdirasaaq Maxamed Cali agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka Puntland oo la hadlayay telefishinka Kalsan ayaa ka waramay shirar uu Nairobi kula yeeshay hay'adaha bahwadaagta yihiin wasaaradda deegaanka. waxaana shirka intii socday uu sheegay in lagu falanqeeyay arrimaha deegaanka iyo sida wasaaradda deegaanka looga caawin lahaa barnaamijyo wacyigelinta deegaanka la xiriira. marka hore waxaan mahadcelinayaa telefishin Kalsan maamulkiisa iyo shaqaalihiisa oo had iyo jeer aan isku taxallujiya arrimaha deegaanka iyo wixii ku saabsan. waxaa jirtay inaan safar gaaban aan u aadnay magaalada Nairobi. safarkaas wuxuu la xiriiray hawlihii deegaanka oo aan meeshooda ka sii wadno. waxaase ugu muhiimsanaa in hay'adaha ka shaqeeya ama nala shaqeeya oo aanan muddo kulmin inaanu saragno. halkaas aan waxaan ku yeelanay shir 3 maalmood ah. labada maalmood hore dhammaan hay'adaha nala shaqeeya oo dhan ayaa yimid iyo darbixiyaasha. waxaana laga wada hadlayay sidii xiriir loo wada yeelan lahaa, sidii shaqooyinka la isaga kaashan lahaa, sidii qorshaha wasaaradda maaragtay loo tixgelin lahaa iyo arrimo la mid ah. sidoo kale waxaa laga soo jeediyay halkaa qorshaha 5 sano soo socota ee wasaaradda oo hadda la dhammaystirayo oo gabagaba jooga in qolo walba ra'yigeeda ay ka dhiibato ama strategic plan ka Soomaalidu hadda ay u leexisay ay yiraahdaan. qorshaha 5 sano ah ayaa aad looga wada hadlay iyo sidii uu noqon lahaa guddiga shaqada wasaaradda ee mustaqbalka. sidoo kale waxaanu shir la yeelanay darbixiyaal uu ka mid yahay midowga Yurub. aan iyagana kala hadalnay sidii mashaariicda maamulka Puntland ama dowladda Puntland loo soo xoojin lahaa. mashruucii hore u socday oo ahaa mashruucii deegaanka waa noloshaada horumarkiisa iyo wixii maaragtay u baahan laga soo xirno waan ka hadalnay waan dhamaystirnay. marka waxaan kaloo aad uga hadalnay oo runtii 3 maalmood iyadana muhiim ahayd waxa wacyigelinta iyo waxbarista dadka arrimaha deegaanka ku saabsan. waxaan dhawaan iyadana bilaabaynaa agaasimaha guud ee deegaanka ayaa tilmaamay in dhawaan bilaabayaan dhiraan ay ku sameynayaan magaalooyinka Puntland si loo helo deegaan qurux badan. waxaana carabka ku dhuftay in wasaaradda deegaanku hadda wado mashaariic kala duwan oo deegaanka lagu ilaalinayo. dhiraynta sababaha aan Nairobi ka mid ahayn sidii loo dhirayn lahaa xafiisyada dowladda. waxaa moodaa xafiisyadan waa iska daawan yihiin meelaha publica ah ama dowladdu leedahay ama isbitaaladan ama masaajidadan ama iskuuladan had iyo jeer waxaa moodaa meel iska maran. marka sidii loo dhirayn lahaa sanadka soo socota haddii la idmo wasaaraduna ay hormuud ka noqoto laakiin wasaaradaha iyo hay'adaha iyo institutionska meelahaas ku yaalaan iyaga ayaa loo baahan yahay inay xiriska saaraan. laakiin wasaaraddu mashruuc gooni ah iyo hawl gaar ah ayay sanadka soo socota ka dhabanaysaa dhiraynta meelaha bulshadu leedahay ee dowladdu leedahay. wasaaradda deegaanka dalxiiska iyo duurjoogta dowladda Puntland ayaa wada mashaariic ballaaran oo loogu talagalay ilaalinta deegaanka. waxaana hadda socda wacyigelino lagu fahansanayo bulshada dhibaatada deegaanka loo geysto iyo bulshadu kaalinta looga baahan yahay inay ka qaataan si loo helo deegaan qurxoon. Cabdixamiid Salaad Bare, Kalsan TV, Garowe.